madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa khudbad ka jeediyay shirka caalamiga dhaqaalaha badaha oo ka socday magaalada Nairobi waxaanu sheegay in ay muhiim tahay in meel looga soo wada jeesto falalka sharci darrada ee badaha. madaxweynaha ayaa la wadaagay madaxda mas'uuliyiinta iyo ka qaybgalayaasha shirkaasi dhibaatooyinka lagu hayo badda Soomaaliya iyo mowqifka ay dowladda federaalk Soomaaliya ka taagan tahay arrintaasi iyo tallaabooyinka lagaga hortagayo dhammaan xadgudubyada lagu hayo xeebaha Soomaaliya. Soomaaliya waa wadan leh muhiimad istiraatiijiyadeed waxaan leenahay xeeb dhererkeedu yahay in ka badan 3,300 oo kiiloomitir waxaana noqonaysaa tan Afrika ugu dheer waxaana dhinaca kale ka mid tahay kuwa ugu wanaagsan ee dhinaca wax soo saarka Afrika waxaana fursad weyn u tahay wax soo saarka iyo warshadaha dhinaca kalena waxaanu leenahay kayd kheyraad oo aan la taaban ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya. dhinaca kale madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo ku sugan magaalada Nairobi ayaa waxa uu la kulmay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. kulanka labada madaxweyne ayaa waxa diiradda ay ku saareen sii xoojinta xiriirka labada wadan iyo sida ay isaga kaashan lahaayeen dhinacyada dhaqaalaha iyo ammaanka. sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo intii uu ku sugnaa magaalada Nairobi waxa uu kulan ballaaran la yeeshay jaaliyadda Soomaaliya ee ku sugan dalka Kenya waxaana uga warramay xaaladda uu dalku ku sugan yahay waqtigan. meeshaan u soconno waxay tahay Soomaaliya oo nabad hesha yaan u soconnaa. Soomaaliya barwaaqo u soconnaa. Soomaaliya oo noqota wadamada aan sheegay oo horumartay yaan u soconnaa. Soomaaliya oo aan u kala qaybsanayn qabiilo yaan u soconnaa. Soomaaliya oo nidaam iyo dawlad fiican heshay iyo sharci iyo kala dambeyn yaan u soconnaa. waxaan u soconnaa Soomaaliya oo sharaf leh yaan u soconnaa. Soomaali waa dad fiican. Soomaali sidaasi madaxdaas adduunka ay u sheegeen yaa dhab ah. shakhsi dad fiican ayaad u tihiin. laakiin jamac waa la isku keen diray been baa la idin sheegay waxaad tihiin qabiilaa la yiri qabiilo ma tihiin. Soomaali waa hal qabiil. waxaan rabnaa waqti yar inaan dalka ku dhisno dhaqaalahana aan dadka ka helno hadday noqoto xoog iyo hadday noqoto xoolo iyo hadday noqoto xirfad saddexdaasba inaan ka helno. isxilqaan waxaa ka mid ah dalka inaan dib u xoreyno oo qolooyinkan horarka ah oo manaxayaasha ah shabaabka ah aan dalka ka xoreyno oo Soomaaliya loo soo diray inaysan nabad noqon. xaqiiqatan waa idin sheegayaa haddii aan ku guuleysanay in banaanka Soomaaliya laga dhibo gudaheena annaga xalisanayna